حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. muttafaqun calayh. waxaa laga wariyey caaisha rabbi raalliha ka ahaadee in ay tidhi weligiis rasuulka sala allahu calayhi wasalama lama dooransiin laba arrimood, hadday dhacdase wuxuu dooran jiray kan fudud haddii uusan dembi ahayn, hadduu dembi yahayse wuxuu ahaa midka dadka ugaga fogaansho badan, weligiisna uma aargudan naftiisa darteed haddii aan lagu xadgudbin waxa alle xarrimay, oo taas wuxuu uga aargudi jiray alle darti. waxaa soo saaray xadiidka bukhaari iyo muslim. xadiidka maxaa laga faa'iidaysanayaa? bannaanaanta kala dooridda laba shay waa in ay ku soo aroortay oo ku bannaan tahay sharciga. in waxay dembi yihiin iyo in kale iyana waa in ay sharciga ku soo aroortaa. 3. waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama dooran jiray waxa sahlan ee ugu fudud haddii aysan xaaraan ama mid la karahday midna ahayn. 4. cidda wax dooransiinaysaa waa khalqiga ee ma ahayn alle, ilaan alle ma dooransiiyo dembi-e. 5. sabarka nebiga sala allahu calayhi wasalam weligiis qof wax ficil ama hadal ah gaarsiiyey kama aargudan, in waxaasi ay meelka dhac ku yihiin waxa alla xarrimay mooyaane oo uu alla dartii u aargudo. 6. xadiidku wuxuu boorinayaa iscafiidda, dulqaadka iyo in loo adkaysto dhibta dadka, laakiin aan gorgortan laga gelin wax alle go'aanshay. 7. waxaa u fiican guud ahaan ummadda, gaar ahaana garyaqaanada, qaadiyada, waaqaaliyiinta iyo dadka madaxda ah in aysan naftooda u aargudan, mansabka ay hayaanna uga faa'iidaysan in ay naftooda wax u qabtaan, aysanna dayicin xaqa alle. 8. wadatashiga iyo in arrimaha la rogrogo oo la kala doorto iyo faa'iidada ay leedahay ayaa xadiidku tusaya. 9. in aan diinta la isku adkayn ee wixii ruqso ah ee sharcigu banneeyey la qaato iyo fadligeeda ayaa xadiidku bidhaaminaya. 10. in qofku hadduu wax dembi ah isku ilsaamiyo uusan fulin ee iska jiro ayuu xadiidku bidhaaminayaa. 11. waajibka qofka muslimka ah saaran ayaa ah in waxa uu og yahay in aysan bannaanayn uu dadka kale uga sii fogaado oo tusaale u noqdo, iska daa in uu ku sii mamaanaado. kuma soo koobi karno fawaa'idda ama faa'iidooyinka xadiidka halkan, sidaa awgeed inta aynu kamberito insha allahu tacaala ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa amaana allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله على محمد